daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad wararkii wacali dhinaca diblomaasiyadda Hurfadhi Media hadii daawadayaasha qiimaha leh qaarkood ama dadka qaarkood ay aad nooga soo cabanaya inaysan wararka ku arag markaasi barta YouTube-ka fadlan Hurfadhi Media ku qor barta YouTube-ka waad helaysaa wararka waxa markaasi wali aan ku guda jirnaa xalinta cilad ka dhalatay markaasi in markaasi YouTube ku tuuro magaca Hurfadhi sidaa daraadeed ama yani kor uu ku laalo oo tusha dadku ka wada arkaan dadka badan liiska kala bixi jireen sidaa daraadeed daawadayaasha qiimaha leh wali waad raadi kartaa wararkuna soo ay socdaan xasee wali cilada inaan kor soo qaadno markaan wax ka bedelo insha Allah warjeynana hadii ay baydmo daawasha qiimaha leh waa 26 Maarso 2019 waa maalmo saalise ah wararkii wacali dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ayaan idin hayaa daawasha qiimaha leh masaajid laga dhisayay magaalo ku taala dalka Faransiiska oo dhinaca waqooyi ee dalkaasi ah ayaa waxa la sheegay in lagu soo qaaday weerar dhismaha masaajidka magaalo yar oo leedo Bergerac oo ah deegaan markaasi uu ku badan yahay doofaarku ayaa la sheegay in la soo hordhigay madax doofaar laga soo gooyay isla markaana gidaarka masaajidka dhismaha soconaya halkaasi lagu xardhay ama lagu tuujiyay dhiig markaasi loo maleynayo inuu yahay dhiig doofaar arrimahan oo ka daba socda weerarada iyo waliba markaasi nacaybiyada xooggan ee muslimiinta ka dhaca ayaa magaalada Bergerac waxa uu ahaa ayaa leeyay markaasi mid argagax galiyay dadka halkaasi dhismaha ka waday shaqaalaha dhismaha ayaa arkay subaxnimadii markay ay yimaadeen baa leeyay arinta dadka soo diyaariyay in ay gidaarka ku xardhaan ama ay ku sharaxaan ama ay ku tarshadeeyaan baa leeyay dhiigga lama garanayo ayaa leeyay laakiin waxa aan aragnay ayuu yiri midka sarkaal ku-xigeenka ciidanka booliska ee deegaankaasi Bergerac ayuu yiri dhiig iyo waliba madax doofaar oo halkaasi la dhigay gaar ahaan albaabka masaajidka ayaa la dhigay halka uu ka soconayay dhismuhu ayuu yiri ku-xigeenka markaasi booliska sidoo kale ana xariyaaliyaha oo leedahay Charles Charosili oo la hadlayay wakaalada AFP markaasi uu warramayay wuxuu yiri dhismuhu markii hore wuxuu ahaa mid buuq dhaliyay maxaa yeelay ayuu yiri waxa jiray ayuu yiri in ay jirtay in dadku ay dalbanayeen in la joojiyo gaar ahaan dadka magaalada u badan balse inay taa ka dhalatay in kale ma sheegi karo taliyaha booliska ee deegaankaasi Bergerac oo la yiraahdo Frederick Brisat ayaa si weyn u cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay ficil khatar ah oo markaasi wuxuu yiri dhaawacaya wuxuu ugu yeeray xornimada diinta iyo wuxuu ugu yeeray in qof walba uu diintiisa sida uu doono markaasi uu ula dhaqmo wuxuuna sheegay in ay taasi ay lid ku tahay ayuu yiri waxa uu ugu yeeray kala saarista diinta iyo qaranka oo uu sheegay in ay tahay bulshadu in qolo walba lagu xushmeeyo waxa ay sida ay markaasi u cibaadeysanayso dad badan ayaa maalmo ka hor waxay isugu soo baxeen banaanka magaalada Bergerac halka laga dhisayo masaajidka ayagoo markaasi hadallo waaweyn ku tuurayay oo ku dalbanaya masaajidka la joojiyo dadka ayaa waxa ay sheegayeen in magaalada Bergerac aysan ahayn magaalo muslimiin balse ay tahay yiraahdeen magaalo ay ka tirsan gobolka leedo Bergerac waxay ula jeedaan gobolka hadarta waxa loo yaqaanaa Dondangni ama loo yaqaanaa Dordong baa loo yaqaanaa gobolka laakiin markii hore Bergerac baa loo jiray ama taariikhdii hore taas ayayna markaasi bixinayaan si kastaba noqotee waxay ka mid tahay markaasi khataraha caalamka ka jira iyo waliba reer galbeedka kolka ay timaado dadka masaajidada kuwaas oo markaasi ayagana runtii aad inay u taxadiraan dadku xilligan isla markaana ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka deegaanka wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo booliska u sheegaana waa aad iyo aad muhiim ah halka nagala socotaan Hurfadhi Media ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khudbad uu u jeediyay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida dalka Soomaaliya arrimo in badan aad Hurfadhi Media ku maqli jirteen dadka qaarkood waliba kuwa madaxweynaha taageersanaa ay mararka qaarkood ay oran jireen waa ku tirkuteen Hurfadhi Media wararka xagee ka keenta dhamaan waxaad moodaa qodobada madaxweynuhu ka hadlay inay tahay kuwii aynu 4 bilood iyo 5 bilood ama 6 bilood ugu dambeysay tan iyo intii dhaqdhaqaaqyada gobolka Geeska Afrika ay bilowdeen tan iyo intii khilaafka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu soo cusboonaaday kol kale tan iyo intii madaxweynaha Faransiiska halkaasi uu tagay iyo tan iyo intii dhaqdhaqaaqii Imaaraadka Carabta oo bilowday dhamaan hadal markaasi koobaya ayuu madaxweynaha Soomaaliya u jeediyay halkan ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliya dawladnimadiisa aan la rabin wuxuuna sheegay in ay jiraan iskaashi iyo isbahaysi gudaha iyo dibadda ah oo isku xiran oo gabi ahaanba la diriraya in dawladda Soomaaliyeed ay cagaha isku taagto in ciidan Soomaaliyeed dhinac walba ha ahaadee la dhiso iyo in khayraadka ceegaaga ayuu yiri Ilaahay ku manaystay wadanka la boobo haddaba aan idin kala baxo idinka iyo madaxweynaha khudbadiisa daawadayaasha qiimaha leh Soomaaliyana waxa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid gudaha labadaba waa haystaan midka dibadda Soomaaliya inay istaagto lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno noloma ogola
waxaa la rabaa in lagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad walaalaheena ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo laga rabo inaan yes niraahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sharafkii Soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dal waxa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha waxa ka shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh maxaan ku raahdaa dibad gacan saar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalkiisu isbedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeya oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka Soomaaliyeedna waa idinka oo cadawga gudaha iyo cadawga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga horeyn karno qolooyinka khawaarijta ah waxaan u maleynayaa arrintaas daawadasha qiimaha leh way isla fahanay haatan waxaan u maleynayaa in waxyaalaha Horfadhi Media ama wararka iyo calaha ay mar walba idin keento waxa ay ku sugan yihiin waa warar sugan sabab anagu aan mar walba aanu runtii aan dalka warbixinaha ku saabsan in khayraadkeena la boobayo in ciidamada Soomaaliyeed in la dhiso aan la ogolayn in xataa mar aanu ciidamada badda ka hadalay anaga ay nooga timid culays nooga yimid in ay jiraan markaas arrimahaas iyo boqolaal shay oo ka badan oo koriga hoos bay kala hadalay waxaan malaya hadda waxaaba idii cadeeyay mas'uulkii dalka ugu sareeyay oo ah madaxweynihii Soomaaliya oo asagu wax badan loona sheegay wax badan oo loola imaanayo in cadawga gudaha jooga iyo kadibada jooga xataa uu sheegay in al-shabaab laftooda ay dibadda ku xidhan in badanna aan eri ama Horfadhi Media ay sheegtay in qaraxyada mar walba leeyahay al-shabaab uun ba ka dameeyay in ay dibadda ka soo karaan daawasha qiimaha leh aan ku sii wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda dalalka Turkiga iyo Iran ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay sheegeen in hawlgal military oo soconayay ay yiraahdeen muddo 5 maalmood kaasoo u badnaa hawlgal dhinaca cirka oo diyaaradaha dagaalka ee labada dal iska kaashanayeen u haatan ku soo afmeermay waxay ugu yeedheen guul wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Turkiga Suleyman Soylu ayaa waxa uu ku dhawaaqay in hawlgal 5 maalmood qaatay ay markaasi soo afmeereen asagoo sheegay inuu markaasi ka soo wareegay shir jira idoo xaqadka telefoonka ka dhacay oo dhigiisa dalkaasi Iran ula yeeshay ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha labada dal ay ku guuleysteen in kooxda cilaaqaadka la leh PKK ee loo yaqaano Kurdistan Free Life Party PKK ee dalka Iran ee ku sugan buraha leeyahay Qantil Mountains ee duleedka dalkaasi Iraq gaar ahaan koonfurta xuduudda koonfurta ee dalkaasi Turkiga lagu burburiyay ayaa la yiri goobo badan isla markaana saraakiil badan lagu habeeyay kelmadda habayn wata ay Turkigu isticmaalaan inta badan oo isticmaalaan kooxaha ay ka hortagaan ayagoo inta badan dil aan isticmaalin dhanka kalena waxa ay sheegeen in PKK ay haatan ay ku jirto maalmaheedii ugu dambeeyay iyagoo sheegay in iska kaashanayaan dawladda Iran in ay burburiyaan kooxda Iran ayaan ilaa hadeerta arrinta si rasmi ah uga hadal ayadoo goor horena tibaxday in aysan doonayn in arrintaas ilaa hadeerta ay tafaasiil dheeraad ka bixiso wararka ayaa sheegay in PKK oo isfidisay oo tan iyo sanadka 1998 xarun ku lahayd dalka Suuriya haatan ay u guurtay burleyda Qantil ee dalka Iraq sidoo kale waxa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay kooxdanu ay ka bilowday gaar ahaan kooxda cilaaqaadka la leh ee u qaabilsan Iran ee leedahay Kurdistan Free Life Party PKK ay iyaguna ka wadaan balili xuduudda labada dal ee Iran iyo Turkiga kooxda ayaa la sheegay inay unugyo fara badan ay sameystay oo ay ka mid tahay kooxda la yiraahdo The Kurdistan Communities Union oo loo yaqaan KCK iyo waliba kooxda kale loo yaqaan BCDK koox kale oo iyaguna loo yaqaan YPT oo iyaguna ah Democratic Union Party oo iyaguna ah kuwa markaasi dhinaca siyaasadda u qaabilsan iyo kuwa loo yaqaan People's Protection Units oo YPG loo soo gaabiyo dhamaantoodna waxa la sheegay in ay yihiin unugyo kala duwan asaasaha ama hogaamiyaha
ururkaas ee ku xidhan dalka Turkiga Abdullah Öcalan ayaa sanado badan ka hor cadeeyay in ururada faraha badan ay sameeyeen ay ula jeedaan in la ururiyo dadka Kurdiyiinta ee ku kala filadsan gobolka isla markaana qolo walba meesheeda ay dagaal ka qaado oo ay ku dhufato dalka ay joogto halka dagaal socodaan Warfadhi Media Hamas ayaa goorroobta waxay ku dhawaaqday in xabad joojin ay ka soo shaqeysay dawladda dalkaasi Masar lagu joojiyay ayaa la yiri in ay xabadii halkaas ka soconaysay ay sii socoto hub culus ayaa lagu garaacay bartamaha Israa'iil iyadoo dhowr qof ay ku dhaawacmeen Israa'iil ayaa kaga jawaabtay duqeyn aad u ba'an oo ay dad badan ku duqeysay qodobada kale daawadayaal warbixinaha dhinaca diblomaasiyadana waxa kamid ah ama ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dalkaasi Netanyahu ra'iisul wasaaraha Yahuuda ayaa waxa uu sheegay in ay markaasi ay sii wadi doonaan wuxuu ugu yeeray qadiyada ku saabsan in ay Israa'iil gaarsiiyaan goob nabad isagoo ka hadlayay shir jiraa'id oo ka faa'iideysanayay dadka reer Israa'iil ugu baaqay inay ka faa'iideystaan wuxuu ugu yeeray fursadda Mareykanku siiyay wuxuu sidoo kale digniin halkaasi uga diray ninka la tartamaya oo uu sheegay in uusan haba yaraatee uusan guul gaari doonin dhanka kalena ciidamada dalkaasi Mareykanka ayaa waxa la soo xigtay in ay markii ugu horeysay la weydiiyay ayaa la yiri inay u dhima doonaan Israa'iil ayagoo arintaasi ay noqotay arin ayaab leh wargeyska leeyahay Jerusalem Post ayaa waxa uu soo qoray hadal uu ka soo xigtay taliyaha saddexaad ee ugu sarreeya ciidanka cirka ee dalka Mareykanka General Richard Clark kaasoo sheegay in howlgalkii ay inta badan wada sameeyaan labada ciidan cireed ee dalalka Israa'iil iyo Mareykanku ay ku soo afgooyeen shalay ayaa la yiri deegaana iyo saldhigyo ka tirsan dalkaasi Israa'iil la sheegay in ciidanka markii la diyaarinayay howlgalka ama dholoska loo yaqaano Timber Copra la weydiiyay su'aalo aad iyo aad u yaab leh diyaar ma u tihiin oo ma ballan qaadatan inaad difaacdaan oo u dhimataan isla markaana mar walba aad heegan u tihiin baa leeyahay dagaal dhow oo ay gasho Israa'iil kaasoo ah mid mar walba khatar u ah isla markaana dhimasho ay ka dhalan karto waxa uu taas inaad sameysaan waa sax ayaa laga soo xigtay sarkaalkaas oo ciidamada kule sida ay sheegayso in loo dhinto qaranka Yahuuda waa arin aad iyo aad tahay inaad isugu diyaarisaan ayaa lagu yiri askarta haddaba sharciga Mareykanka ama marka loo noqdo waxa loo yaqaan constitutionka Mareykanku muxuu ka qabaa arinta waa maxay marka askari Mareykan aad tahay askari Mareykan marka lagu qoro waxa lagu dhaarinayo ama maxaad ku dhaaranaysaa waxa lagu dhaarinayaa waxaan ku dhaaranayaa inaan si daran daacad ugu ahay ama aan qiraya inaan taageeri doono oo difaaci doono dastuurka Mareykanka isla markaana aan ka difaaci karo ka difaaci doono cadowga oo dhan ee ka dhanka ah haday yihiin ka dibadda gudaha sidoo kale waxa aan si niyad ah aan ugu dhaaranaya oo aan daacad iimaankayga isagoo uu joogo aan daacad ugu ahay in aan daacad u noqdo qarannimada iyo calanka Mareykanka saas ayaa lagu dhaariyaa ciidanka Mareykanka intaas ayuu ku dhaartaa balse arintan ayaa la sheegay in durba ay khilaafsan tahay sharciga iyo dastuurka Mareykanka ma jirto meel markaas dastuurka Mareykanka ka qoran in askariga Mareykanka ah uu dal kale u dhaarto haddaba sarkaalkan ayaa waxa uu isagoo la hadlayay Jerusalem Post inta kuma joogsanay General Clark wuxuu yiri ciidamada waxaanu kala ku amarnay ayuu ciidanka la tababarta ama tababarka la sameeyo ku Israa'iil inay u diyaar garoobaan xataa in ay awaamirta ka qaataan ciidanka cirka ee Israa'iil loo yaqaan Sifaka wuxuu yiri ciidanka Sifaka ee qaar ahaan waaxda dhinaca difaaca cirka ee dalkaasi ay dhow hadii leedii hoos geeyo oo ayaga aad ka amar qaadataan ha ku nixina ama ha ku yaabina ayaa lagu daawadaasha qiimaha leh qodobka ugu dambeeya inta ku soo koobin dalka Britain ra'iisul wasaaraha Theresa May ayaa mar kale go'doon gashay kadib markii xildhibaanada aqalka la yiraahdo the House of Commons ay u codeeyeen in ay la wareegaan hogaaminta waxa loo yaqaan Brexit-ka ama ka bixitaanka Britain ee Yurub inteeda kale Miss May ayaa haatan u muuqata in ay go'doon gashay haweeneydan ayaa waxa ay dhibaatadu kaga timid kadib markii ay hana kala weyday baa la yiri iska daa baarlamaanka xisbigeeda iska dhaaf xubnaha ku jiray xataa golaheeda wasiirada ee iyadu gacanteeda ay ku magacawday saddex kamid ah golaheeda wasiirada ayaa goostay waxaana ay sheegeen in ay iska casileen dawladda sidoo kale hogaamiyaha markaas mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa isaguna waxa uu sheegay in uu taageersan yahay go'aanka 329 kamid ah xubnaha baarlamaanka ee aqalka House of Commons ayaa waxay u codeeyeen in ay baarlamaanku iyagu ay noqdaan kuwo diyaariya wax loogu yeeray wixii loo gaaray maalinta Arbacada qaabkii iyo sidii looga bixi lahaa ayaa la yiri ama wax markaas wax ku ool oo wax tar leh oo looga bixi karo ayaa la yiri midowga Yurub intiisa kale xubnaha golaha wasiirada ee ka baxay haweeneydan ayaa waxa ay ku noqdeen arxjab dadka ayaa waxay ugu baaqeen Miss May inay iska casisho goobta maadaama ay si daran ugu ceebowday isla markaana ay dhamaan ay ka baxeen baa la yiri iska daa cid kale ay cod ka wadi golihii wasiirada ee iyadu ay masalasay waxa la sheegay in saddexda wasiir ee ugu dambeeyay arinteeda ka baxay ee kala ah wasiirada Richard Harrington, Alistair Burr iyo waliba Stephen Barron ay markale
Soomaaliya dhabarjab ku noqotay ra'iisul wasaaraha taasoo ah markaasi dharbaaxadii ugu dambeysay ku dhacday amaana Allah.